aada iyo aada ayaan uga xumahay dhaqanka aabbayaasha qurbaha jooga ay sii caadaysanayaan, isla markaana aanay ka fiirsanaynin mas-uuliyaddii ay dayaceen. walaal, ma tahay aabba qurbaha jooga, owlaad ku dhalay, mid laba saddex, intay doonaanba hala ekaadaan? ma ogtahay mas-uuliyadda 100% inay adiga ku saaranta? ma ogtahay in lagaa doonayo inaad noloshooda oo idil aad kafaalo qaado inta laga gaarayo xilliga uu rabbi subxaanahu watacaala kaala wareego oo ay qaangaaraan oo kitaabkooda loo bilaabayo? waxaa lagaa doonayaa diintooda, aqoontooda, akhlaaqdooda dhammaan inaad adiga daryeesho. waxaanse aada uga xumahay inaad waayadan dambe la idinku arag. arrintani waxaynu u baahannahay inaynu wax badan ka bedelno. ubadkayaga 30 sano ee lasoo dhaafay gacan kuma jiraan. haddaba haddii aad tahay aabada maqasho leh, waxaa kaa codsanayaa in ilmihii gabadha aad kala tagteen aad dib ugu noqoto, ama aad dib ugula wareegto mas-uuliyaddaadii. haddii aysan dhacayn in aad wada noolaataan, fadlan ilmahaada wada noolaada. ku dhig gacanta ilmahaada. ma garanayo waxaad ugu halaysay ruux aan mas-uulba ka ahayn. shay aadan mas-uuliyaddiisa aadan lahayn dee waxba kuguma fadhiyo. wixii ka dhacayane waxaad odhanaysaa ciddii mas-uuliyaddeeda lahayd ayay dhibtaa. ilmahani mas-uuliyaddeeda adigaa leh, waa inay adiga ku dhibtaa. gabdhahani way dadaaleen, laakiin dadaalkooda hal bacaad lagu lisay weeyaan. awood ka tan badan weeyaan. gaala ayay ku dhex nool yihiin. ma haystaan qarashaad. waqti badan baa uga luma. way shaqo tagaan,